qiimaha iyo qadarinta mudanu usoo dhawaada muuqaal kooban oo aan uga hadli doono 10 xayawaan ee geli doona jannada. Haddii aan ku weydiiyo su'aasha ma ii sheegi kartaa 10 xayawaan ee gelaya jannada, waxaa suuragal ah inaad igu jawaabtid maya. Si aad u ogaatid 10 xayawaan ee gelaya jannada, fadlan muuqaalkan daawo hana ka bixin ilaa aad dhamaysato. muuqaalkana waxaan ku faahfaahin doonaa 10 xayawaan ee gelaya jannada. Wankii lagu furtay Nabi Ismaaciil calayhi salaam markii uu Nabiyullaahi Ibraahim ku riyooday wiilkiisa oo la qalayo oo ahaa Ismaaciil calayhi. Hudhudkii Nabiyullaahi Sulaymaan isagoo maqnaa waqti badan kadibna keenay qisadii Balqiisa. quraanjadii ka qoslisay Nabiyullaahi Sulaymaan waxaana lagu sheegay Quraanka Kariimka suuratu Naml. nabarigii laqay Nabiyullaahi Yuunus isagoo calooshiisa ku jiray 3 habeen. hashii Nabi Saalax ee mucjisada ah. eygii asxaabul kahfi waxay ahaayeen 6 nin iyo ey waxay hurdeen 309 sano iyagoo badbaadinaya diinta. hashii Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam ee gaadiidka u ahayd nabigeena waxaana lagu magacaabaa qaswa, waana hashii calaamadisay masjidun nabawi meesha uu ku yaal. sidoo kale waxay baajisay dagaalada. dibigii Nabiyullaahi Ibraahim wuu ku marti qaaday 3 malag oo soo martiyay: Jibriil, Mikaa'il iyo Israafiil. ushii Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam ushaas oo isku bedeli jirtay mas. sacii Nabi Muuse xadiisiga nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. waxaan idiin soo diyaariyay anigoo Cabdisamed Cabdullaahi Cali Suldaan. halkaad ka daawanaysayna waa Suldaan Media. waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.